بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan maanta imi xarunta guddiga doorashooyinka qaranka muxuu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya runtii maanta waxaan dareemayaa maalin aan wada sugaynay iyo waqti aan wada filaynay dhammaanteen oo muddo dheer qaadatay inay maanta ay alxamdulillah rabbil caalamiin inoo hirgashay inaan isdiiwaan geliyo oo aan qaato shahaadada musharaxnimada xilka madaxweynaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2022 waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan ugu imi shaqaale hufan guddida labada aqal ka kooban iyo shaqaalaha runtii la shaqeynaya iyo dhinaca muxuu ahaa warbaahinta qaranka iyo warbaahinta kale ee la socda marka waxaan jecelahay runtii wixii fariin iyo barnaamijka doorashada waa isugu iman doonaa haddii Ilaahay idmo laakiin Ilaahay mahadiyado nabada inay maanta halkan aan arintaasi aynu shahaadada qaadanno waxaan filayaa waa guul weeye waxaan Ilaahay inooga baryaa subxaanahu wa ta'aala in inta hadhayna uu inoo dhameystiro oo ay nabadgeliyo iyo wanaag inoogu dhamaato waana mahadsantiin